duhur wanaagsan daawadayaal waa wararkii xulyo xaqiiqo qaybtan waxaanu idinkula wadaagaynaa haddii aan la idmo xogta aanu idinka hayno qaraxyadii shalay galabtii dambe ka dhacay dalka Turkiga magaalada Istanbul iyo wararka ka soo baxaya taariikhdu 14 November 2022 duca qabayaal markale soo dhawaada 6 qof ayaa ku dhimatay halka 53 kalena ay ku dhaawacmeen shalayto kadib markii qarax uu ka dhacay wado mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana qaraxan uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tilmaamay weerar bambaano oo uu ku tuhmayo ama u soo uraysa buu yidhi qaabka argagixisnimada gaadiidka ambalaasta ayaa ku soo yaacay goobta uu shilku ka dhacay oo ku yaala wadada Istiklal oo dadku marka horeba buux dhaafiyaan kuwaas oo booliisku ay si degdeg ah u xireen xaafadan oo ku taal degmada Bayoglu ee magaalada ugu weyn dalka Turkiga ayaa waxaa si caadi ah u buux dhaafiyay dhamaadkii toddobaadka dad badan oo dukaamaysanaya dalxiisaya iyo qoysas iyagu deganba goobta ama agagaarka ka agdhow muuqaal fiideo ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinaya xilli uu qaraxu dhacay oo ahayd 4:13 daqiiqo galabnimada saacadda Turkiga fiideogan ayaa laga arkayay hawada qiiq badan iyo qashin badan oo daadsan dariiqyada halka qaar kalena ay goobta ka baxsanaayeen dadaaladii lagu doonayay in Turkiga iyo dadka Turkiga looga adkaado argagixisnimada waxay maanta fashilmi doonaan si la mid ah shalay iyo sidii kale bari ayuu yiri Erdogan oo shir jaraa'id ku qabtay isla magaalada Istanbul dadkeenu waxay ku kalsoonaan karaan in dambiilayaasha ka dambeeya weerarkan la marsiin doono ciqaabta ay mudan yihiin ayuu yiri isagoo intaas ku daray in xogta ugu horeysay ee ay soo jeedinayso hay'adda sirdoonka Turkiga ay tilmaamayso in qof dumar ay qayb ka qaadatay weerarkan waa khalad in la yiraahdo kan shaki la'aan waa weerar argagixiso laakiin horumarka bilow iyo sirta ugu horeysa ee gudoomiyahayga ayaa ah in ay u urayso buu yiri sida argagixisnimo ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda qaraxa balse Istanbul iyo magaalooyinka kale ee Turkiga ayaa waxa hore u bartilmaameedsaday kooxo gooni u goosad ah oo kordhiin ah mintidiin islaami ah iyo kooxo kale oo ay ku jiraan weeraro xiriir ah oo dhacay 2015 iyo 2016 muuqaal ay soo dugtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinaya dad u diyaar garoobaya dhibanayaasha qaraxa kadib iyadoo markii dambe ay baadhayaal ku lebisan dharcad ay ka ururinayeen waxlaha goobta halkaas oo qaybo ka mid ah shubka ay daadsan yihiin dariiqyada daawada haddii qaraxan loo soo xaqiijiyo inuu yahay qarax argagixisnimo waa qaraxii ugu weynaa ee Istanbul ka dhaca dhowr sanadood qaraxyo mataano ah oo ka dhacay banaanka garoonka kubadda cagta Istanbul bishii December 2016 ayaa waxaa ku dhintay 38 qof halka 150 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay sheegatay kooxda Kurdiyiinta ee PKK cambaareynta weerarka iyo tacsida dhibanayaasha ayaa ka kala imanaya dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Greece, Masar, Ukraine, Azerbaijan iyo Pakistan madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in uu tacsi u dirayo dhibanayaasha iyo in warkan yahay mid dareenkiisa dhibay oo ka nixiyay